daawadayaal waxaa haatan dhinacayga taagan Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horeysay qaxooti ah Afrikaan ah Soomaali ah oo ku guuleysata golaha Koongareeska Mareykanka sidoo kale waxay noqotay gabadhii difaacatay kursigii muslimiinta ee gobolka Minnesota Ilhaan hambalyo waa mahadsantahay waxaad dareemaysaa caawa waa lagu doortay Koongareeska Mareykanka aad ku biiraysaa dareenkaaga iyo dadaalkii aad soo martay haddaad iiga sheekayso الحمد لله هرتكو ان ادي ادان ufaraxsanahay dadka dhan waa aragtay sidii ay faraxda badan ka muuqato damaashaadka ay ku jiraan anagoo dhan aadan u faraxsanahay saa wogtahay en kursigaanayti hadda ka hor waxa hayn jiray Congressman Keith Ellison en kursi anaga nagu weyn u ahay kursi kaliyo oo wuxuu ahay Minnesota qof muslim ee uu haysto marka kulligeen waxaan dareensanayn en jagadan markay soo banaanaatay inaan u baahnayn qof muslim ah oo en adag inuu jagadaas ay noogu fadhiisto en aadan ugu faraxsanahay dadka inay kalsooni igu qabaan aniga ay go'aansadeen aniga idiraan booskiisa waxaad kursigan ku guuleysanaysaa xilli Mareykanka dadkoodu ay aad u kala qaybsan yihiin isla markaasina muslim nacayb badan uu jiro xilligaas inaad guuleysato iyo waxa maskaxdaada ku jira والله waxaan u maleynayaa en guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan dadka inay diyaar u yihiin inay xasuustaan wadankaanayti inuu yahay wadan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhaweeyo waxaan u maleynayaa hadda in dareenkaasaytii uu jiri doono dadka ay aaminsanaan doonaan in wada jir aan wax badan ku suubin karno in walaaltinimada ay muhiim tahay in annaga oo wada soconno waxyaalo badan ay noo suurtageli karaan wadankeena waxaad tagaysaa golaha Koongareeska Mareykanka waad ogtahay madaxweynaha dalka Mareykanka gobolka Minnesota yimid Soomaalidana si kulul buu weeraray habeenkii halkaas aad tagto madaxweynihii ka qudbaynaya fariinta ay dirayso فرين وين dadka badana campaign-kayga ku jiray waxay dhihi jireen inta kaliya aan xiisaynayna waxa waaye dadkii uu isku dayay wadanka in uu ka joojiyo inay imaadaan oo hadda noqonayo dadkii sharci asiga ka soo dejin lahaa marka intaas ay kaliya aan u maleynayaa inay ku filan tahay